maanta waxaan rabaa inaan idin tuso yani fiidiyowyadii soo geliyay youtube-ka mid ka mid ah ama kuwo ka mid ah ama kuwii ugu saameynta badnaa. Kani wuxuu ka mid yahay kuwii ugu saameynta badnaa ayaan soo dhigay youtube-kayga. Marka sidaas oo aan horena aan u dhigi jiray youtube-kayga. Halka idin muuqatana waa Dickson iyo magaaladii. Kanina waa muuqaal kale oo ka hadlayo dilka iyo Soomaalida yani siduu ugu fudud yahay. Marka alla maxaa wax la soo maray, bal taariikhyada hore marka dib u raacdo waxaa ku soo baxaya cashiro buuxo. Muuqaalkan waan xasuustaa waxaan oga hadlay mowduuc ku saabsan dilka Soomaalida siduu ugu fudud yahay iyo first option inuu u yahay dilka waxa ugu horeeyo qofka uu ku fikiro inuu yahay qofkan inaad disho, qofka inaad raali aho ka codsato wixii iga raali gelay khalad baa ka tabanaya iyo waxaas dhan inaan laga hadlin ee tahay dilna u yahay meesha ugu dambeysa ee qof bini aadan ahi yani ama wax qof bini aadan lagu sameeyo. Kanina waa muuqaal kale waan uga hadlayay, waan xasuustaa muuqaalkan kale waan xasuustaa waxaan uga hadlayay What Amazing as 7 number 7 qiimaha uu leeyahay. Waxaana ka mid ah in dib idin xasuusiyo cirku wuxuu ka kooban yahay 7, dhulku wuxuu ka kooban yahay samooyinku samooyinku waxay ka kooban yihiin 7, dhulku wuxuu ka kooban yahay 7, jannooyinku waa 7, naaruhu waa 7, ayaamuhu waa 7. Marka dib iskugu laabato ahaantaada waxa ku soo baxaya inaad tahay taariikh soconayso iyo cashiro soconayo. alla maxaa wax la soo maray. Kanina waa muuqaal kale oo aan isagana duubay waan uga hadlayo talo ku siinayo Somaliland berigii ay tarxiishay reer koonfur galbeed oo ay ku dhahday iga baxa wadankayga sida ayaga oo u dhaqmayo wadan gooni ah. Marka waan xasuustaa taariikhohii dhacay. Marka wax waliba way fiican yihiin in muuqaal laga sameeyo dan kadib loo daawado. Marka hadalkani wuxuu ka mid yahay waxyaabihii aan kusoo xasuustay hadda wax ka dhacaya Lascaanood. Marka fiidiyowyada qaar waxay kugu yeelanayaan saameyn. Kani saameyn bay ugu yeeshay wax hadda ka socdo Lascaanood markaan eegay. Sawirkan isagana waa 2 sano ka hor. Waa muuqaal qurux badan oo dhalinyaro badan oo shaqaysata oo iskood waxa maasha ah ka sameynayay anagoo maalintaas farxad ku wada ciidnay. Marka alla maxaa taariikh iyo wanaag fara badan adduunka inta joogto sameyn kartaa. Marka weligaa inta nooshahay waa wax aad awoodo sameey, waxaad awoodo sameey, wax kale ha sameyn inta awoodo. mujeedin taariikhdu kaasa way isqoraysaa waa dad fara badan. Marka waa 2 sano ka hor maalin aan wada ciideynay asxaab badan baa halkaas taagan. Marka inta ka taqaano waa aragtay inta kalena waa kuwaasa. alla maxaa xasuus oo wanaagsan adduunka taala. meelahanina waa meelihii ugu qurux badnaa ee aan booqday mar aan safar ku tagay magaalada madaxda ama caasimadda Canada ee Ottawa. Waxay ahayd meelihii ugu qurux badnaa oo aan booqday intii aan joogay Ottawa. Marka ilaahay annagana sidaan wadankeena ha noo yeelo, wadankan quruxda badan asagana ilaahay amnigiisa u ziyaadiyo, dadka ku dhaqan muslimiintan ilaahay ha ku badbaadiyo. Marka waa muuqaalada ugu qurux badnaa oo maanta dib aan u daawanayay ayaan arkay. muuqaaladii aan sameeyay kuwa qurux badnaa ayuu ka mid yahay kuwani. aniga meesha jeefir dadka meesha jeefir adduun wakaasa. tanina waa sawirro hore oo aan sameeyay sanadkii hore weeyaan. asnagana waa baraf zaa'id ah. waa aragtaan sida barafku yahay sa u dhex socdo waa aragtaan.
barafkii adduunka daay maalintaasi 2022 ahayd. maalintan waan xasuustaa wax shaqo la aaday ma lahan. sanadkan waan si badan nahay. bal fiiri baabuurta, fiiri wadada, hanta fiiri saad u egta, fiiri maasha allah, wax kale ma dhihi karo. waa dhiiqo wax kaloo dhihi kara ma jirto. marka waa xasuuso fara badan iska jiri doonaan. dhiiqadan wataasaa TDC xitaa ma jirto. TDC xitaa waxaa u shidan wax kale. marka asxaabay waa xasuusihii 2022. waxaa kaloo ka mid ahaa oo aan la yaabay oo ka mid ahaa meeshaas fiiriya waxa soo bixi doono. baabuur dhiiqa galay. hadda Africa u malayn jirta, hadda waatana baabuur dhiiqa kale oo karda joofir ma jirto. maxaa baabuur dhiiqa kale adduunka meel walba ka jira? baabuur baraf galana waa kana. halkaa waxaa idinkaga muuqdo breaking newskii. wax tani waa mid ka mid ahaa madaxweynihii qaranka ee Soomaaliya, xabiibul malaayiin, oo maxay cirbadii corona qaadanayo. asagana waa xasuus aan caadi ahayn in madaxweynuhu uu qaato cirbadii corona vaccine-ka. marka xabiibul malaayiin waa lagu xisay. soo laabo please. waa tana hadala markaan waa kana agood me vaccine 19 waa kana hadda anoo la duraayo ya. dhakab cirbadii la qaatay, farmaajo iska baraajiyey. marka wakaasa wax kaloo dhihi kara ma jirto. xasuus waaye. I like that. marka islaama asxaabta.